السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصحابي ومر لبعض نسكسور لابني وإلهي مهدي بريها وان كل راجني ملي إتوي ملي حيسي هدي أتنا كعصبت هاي هالعصبة وطا أنت أنا وجد قلنا برنامج كنا مش هكذا نعاور وين نلو ذاقو هدي أتنا كعصبت هاي سكرايب لايك شير هدي أنا توقتنا قام فرن ويلكم أصحابي وحقيقي وذا قيبتي لبعض شكدي فارح يفادمو قصدي فارح يفادمو بعد بدن أو ما عرفتي سبسكرايبر كيجا أدير بليس ونلسه وذا قيبتي لبعض وح قدوم قيبتي لبعض بعدين وذا شكد وحي نمريت أصحابي ويل كفارح هو يديس مركي عرفتي كبدي أسيبه قريه كتجينيه أو هالمر ساعة وحنت أقعد شيء عليك بهاي ولا هاي مقعدة كرت كليجا يا بي ما عرفت سلامتي إنها كون فتى مركزي خيلة أفكفرت وريا محاكو جاي كبدا مساكين تا غيرها فخر جا إنك هو ساجي بدودة بالحاجين جلا أبرك برتيد حنك شيء مع قانون ويلكو حيرو هاي ساعة ما هين هوشو قبل درسكين أو قبل تيران أو قبل يوم ساكينة وقف هوين أو ما عرفتي أنت سؤال ما أنا وحكر أو زائد أنا قدنك ما أنا لهين الحمد لله سلامتي وي فرحدي مركو ويلكي قبلنا وحدنا كمليه بلسه maxaa soo socda hadda gidagina sheekada markii halka marayso baa waxa dhacday maalmaha kamid ah oo isla wiig laftigiisa ah baa waxa dhacday darbiga maxay ahayd meel waxa jirtay labada reer u dhow oo lagu gad jalaato inoo Soomaaliya kuleel waaye mees jalaatada lagu gaday ayadoo jalaato ka gadanaysa biir adigana ii dhiib xabad si wiilka jalaatada ka iibsaday sarafka inta loo celinayay boo ninkan waa nin leen dareenaye faarax dabkiisu dab sahlan ma aha wuxuu rabaa iyo waran fiican tahay hooyo ka waran xaaladiina dirsaanahay inaan iska warqabnaa jeclaa ma waxa ma qabnay tirnagu waa fiican alxamdulillah laakiin dad isku level ah annaga idinku ma nihiin walaalo bal hadalkaaga ma aragtay iga gaabso maya waxaas ma jiraan aniga dhalinyaraan ahay isku meelaan ku kornay dirsaanahay adduunyo iyo aakhir waxa la isweydiiyaa diriska marka waxaan jeclaystay inaan bal wax yar ku wareysto xaaladaada waa fiicanay alxamdulillah aniga sanadkan iskuulki ma aadayo markaas waxay ahayd galaaska 8aad dugsiga dhexe iskuul ma aadayo sababta oo ah hooyaday baan waxaan rabaa inaan maxay ahayd kala wareego shaqada hooyo iga xanuunsan marka iskuulku waan ka baaqanayaa maya ka baaqan gabar maxay future la mustaqbal fiican la tahay maxaa iskuulka oo baaqanaysa maxaa ka caawiya bal ii sheeg wax ma jiraan ma aragtay aan adlisti qaban karo dii jiraan ii sheeg walaalay maxaa dhibo jira ma duruufa dhaqaale imiyaadan haysta ma adigu nin dareen hayo oo xoogaa idisla iska ladan tahay markaas waxay tiri ma waxa ma qabnaa fiicannahay maya baxbay qarni ii sheeg walaalay waxaan jeclahay inaan garabkaaga istaago mar walba oo ma aragtay maadaama aan dirsanahay okay tiri welcome soo dhawo dad garabkay taagan tahay waa wuxuu yiri maqribki markii maxay ahayd salaada maqrib laga soo baxo baan banaankoogu imaanaya walaalay bal xamraan kula hadlo maya aniga maana maqrib ila hadle bismillaah rahmaan war maya iga tagad ma wiilka cidaba qasaaran baarta in la igu sawiro war dhiba ii soo jeedin aniga ii waalidkayba sheekada markii halka marayso asxaabay waxaan jeclaystay qaybtii labaad inaan halkaas ku ekeeyo maadaama sheekadan aysan qayb koowaad iyo qayb labaad iyo qayb saddexaad aysan ku dhamaanaynin hadal badan ahaan ma buuxiyo isugu soo laaban qaybta saddexaad next time barnaamijkeeni maanta qisadii faarax iyo faadumo halkaas ayaan kaga tegayaa asxaabay haddii aad wax sheekooyin haysaan waa ila soo xiriir kartaan commentiga iyo waxaas ay igu soo reebi kartaan wax sheekooyin qiso ah waxay hadday idinku jiraan waa ila soo wadaagi kartaan maanta intaasaan kaga gudbaynaa sheekadii faarax iyo faadumo xasuusin haddii aad ka cusubtahay channelka subscribe like share haddii aad nala joogtana gacmo furan kusoo dhawaaw assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu